ادي انا في استوديو ادي ربا habeen dambaan si fiican u baashaarayna tiimkaasoo meel walba joogtaan 114 quraanka xadidiisa aan ku salaamay basra boobsan meel u socono malaha 4 sano soo socoto iyo miiskan iyo waliba information waliba arinta ardu ay ka sii weynaanaysa insha Allah information badan baa la wadaagaya sida muuqaalka kaaga muuqata daawade waa alfanaan Ilka Casaqays raabarkii weynaa waxa uu leeyahay haatan ayaan stuudiyaha u socdaa oo waxa aan soo qaadi rabaa hees isagoona sidoo kale heestaasi dhammaanba dadweynuhu ay wada hadal hayaan in jawaab kulul ay ku noqon doonto daayarka raabarka ah ee lagu magacaabo alfanaan Sharma Boy iyo waliba sidoo kale muuqaalkiisa live TikTok uu ku jiray oo uu ku sheegay in iyana heestaasi ay ku socoto sidoo kale Daahir Calasow haddaba muuqaalkeenan ayaan saaxiibayaal xoga xasaasiya idinkula wadaagi doonaa walow Ilka Casaqays muddooyinkan dambe uu ku sugnaa magaalada Jigjiga isla mar ahaantaana haatan sida uu sheegay dagaalkii uu soo gabagaboobay ayna guuleysteen garabka ciidamada New Police waa sida uu sheegay haddaba muuqaalka la garay saaxiibayaal intaan u gudagalin oo channelkeena ducaysana media subscribe oo gambareelka u furo ku mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena ducaysana media warbixinteenan saaxiibayaal waxaan ku qaadaa dhigi doonaa alfanaan Ilka Casaqays ayaa jawaab kulul waxa uu ka soo bixiyay karbaashkii weynaa oo uu dusha uga tuuray fanaanka caanka ahaa ee Sharma Boy Ilka Casaqays ayaa waxa uu sheegay in uu haatan isagu u socdo stuudiyaha isla mar ahaantaana uu kala furi doono buugaagtiisa ku aadan xagga raabka karbaash culusna uu xabadka u gelin doono fanaanka da'da yar ee lagu magacaabo Sharma Boy iyo waliba sidoo kale Daahir Calasow oo muddooyinkan dambe iyana labadooduba ay dirir ka dhaxayso dagaalka ayaa waxa uu noqday laba saf waxaana sidoo kale isla safan Daahir Calasow iyo waliba Sharma Boy halka Xariir Axmed iyo waliba sidoo kale alfanaan Ilka Casaqays iyana garab ay yihiin balse Ilka Casaqays oo haatan sheegay inuu stuudiyaha u socdo isla mar ahaantaana sida ka muuqata duubi doona hees karbaasha loogana bartay heesaha karbaaska iyo sidoo kale heesaha u badan bootada ayaa waxa uu sheegay inuu soo qaadi doono hees uu ku karbaashayo Sharma Boy iyo waliba Daahir Calasow ila milicso daawade mar uu ku jiray aalada nuuca loo yaqaan TikTok qaasatan waliba live-ka ayaa waxa uu sheegayaa dhammaan tiimkaasow ha isku diyaariyaan hees kulul oo inaba aan caadi ahayn oo la socda ayuu leeyahay barahayga bulshada qaasatan aalada TikTok ادي انا في استوديو ادي ربا habeen dambaan si fiican u baashaarayna tiimkaasoo meel walba joogtaan 114 quraanka xadidiisa aan ku salaamay basra boobsan meel u socono malaha 4 sano soo socoto iyo miiskan iyo waliba information waliba arinta ardu ay ka sii weynaanaysa insha Allah information badan baa la wadaagaya TikTok-gayga falo dhaha dagaalkan ayaa muddooyinkan dambe waxa uu u dhaxeeyaa ee dhiiga badan aan ku daadan ee raabka ah alfanaan Sharma Boy iyo sidoo kale alfanaan Ilka Casaqays walow dagaalkan uu ku dhex milan yahay saxafiga caanka ah ee lagu magacaabo Daahir Calasow isla mar ahaantaana dadka qaarkood ay yiraahdaan madaxweynaha baraha bulshada waxaana la sheegayaa in haatan dagaalkaasi uu noqon doono waxaana sidoo kale soo bixi doonta sida haatan uu sheegay Ilka Casaqays hees jawaab kulul ku ah alfanaan Sharma Boy ku mahadsanid daawashada muuqaalkan fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato ducaysana media subscribe oo gambaleel ku furo channelkeenan like oo follow page-keena ducaysana media ee Facebook haddii aad naga daawanayso tan iyo kulanti dambe nabadgelyo